kama dambaysta Champions League waa heerka ugu sarreeya kubadda cagta ee kooxaha. Halista ayaa ah tan ugu sarreysa, fursadaha iyo qaladaadkuna waa kuwa hooseeya. Tayada kubadda la ciyaarayahay waa midda ugu fiican, waxaana ka soo baxa muuqaallo iyo dhacdooyin la yaab leh. waxaynu aragnay finaalo kala duwan oo Champions League ah oo la yaab leh, balse midna lama tartami karto finalkii 2005. wixii dhacay finalkii Champions League-na waa kuwa qof kasta ka dhigay mid afkii juuqda gabay. Tani waxay ahayd ciyaar u dhaxaysay laba kooxood oo kamid ah kuwa ugu waaweyn qaaradda Yurub. Aynu ku bilownay AC Milan waxay ka soo adkaatay Barcelona, Manchester United, Inter Milan iyo PSV si ay u soo gaaraan finalka. dhinaca kale Liverpool waxay ka soo adkaatay Leverkusen, Juventus iyo Chelsea. labada kooxoodna waa ay u qalmeen inay halkan soo gaaraan. marka adeegta tayada ciyaartoyda labada dhinacna waxaad xilli horeba saadaalin lahayd in ciyaartan ay noqon doonto mid galaysa buugaagta taariikhda. AC Milan waxay haysteen ciyaartoy heer caalami ah sida Dida, Cafu, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Kaka, Seedorf, Gattuso, Shevchenko iyo Crespo. waxaana hogaaminayay macalinka caanka Carlo Ancelotti. dhinaca Liverpool ma aysan wadan xidiga magacyo waaweyn leh, balse waxa ay garoonka ku haysteen hal doorre hiboolayaala sida Stephen Gerrard, Xavi Alonso, Jimmy Carragher, Sami Hyypiä iyo kuwa kale. waxaana hogaaminaya tababare Rafael Benitez. Milan waxay ciyaarta soo gashay iyagoo ah kuwa ugu cadcad, mana ahan kaliya ciyaartoyda magacyada waaweyn ay wataan, balse sidoo kale waa waayo aragnimadooda awgeed. waxay Champions League qaadeen 2 sano ka hor. dhinaca Liverpoolna ma aysan taaban koobkan tan iyo 1984. 21 sano ayaa u dhaxeeyay finalkan iyo waqtigaasi. Milan tan iyo waqtigaasi waxay qaaday koobka 4 jeer, waana kooxda labaad ee ugu badan oo koobka ku guuleysatay. waxayna taasi muujiyeen ilbiriqsiyadii ugu horreysay ciyaarta, iyaga oo si kalsooni la ku bilowday. Milan waxay ku furtay ciyaarta goolkii ugu horreeyay daqiiqadii ugu horreysay. kabtankooda Paolo Maldini ayaa dhammaystiray kubaddu ka helay Pirlo, taasi oo si cajiib ah u dhaafiyay goolhayaha. ilaa iyo maanta goolkaasi waa midka ugu dhaqsiyaha badan ee laga dhaliyay finalka Champions League. marka aad ku bilaabatay ciyaarta rikoor noocaasi oo kala ah, dabcan waad dareemaysaa inay waxyaalo cajiib soo socdaan. ciyaartan waxaa lagu ciyaaray garoonka Atatürk Olympic Stadium ee magaalada Istanbul, waana finalkii ugu horreeyay ee Yurub ah oo lagu qabto gudaha Turkiga, waxayna isu bedeshay ciyaar cajiib ah oo ay Milan maamulanayso. goolka waqtiga hore ah waxa uu Liverpool galiyay niyad jab, hase yeeshee waxa ay muujiyeen deganaan iyo adkaysi. daqiiqada kadibna Stephen Gerrard ayaa soo qaaday kubad cajiib oo ku soo riday gudaha boxiska, waxaana kubaddaasi madax ku helay Hyypiä. ha yeeshee kubaddii waxa ay si sahal ah ugu tagtay goolhayaha AC Milan. 13 daqiiqo markii ay maraysana Milan waxa ay ku dhawaatay in la timaado goolkeeda labaad. Seedorf ayaa kubad ka soo qaaday dhinaca koornada, Crespo ayaana madax la beegsaday kubaddaasi, ha yeeshee iyadoo oo galaysa waxa xariiqinta ka soo saaray Luis Garcia. Liverpool oo xaaladdu ku xuntahayna waxa xaaladii uga sii daray Harry Kewell oo dhaawacmay, waxaana garoonka laga saaray daqiiqadii 23aad. Rafael Benitez waxa lagu qasbay inuu sameeyo bedel degdega, isaga oo keenay Vladimir Smisar. waxa uu muuqdaa bedel qasaba, ha yeeshee gadaal ayuu ka noqon doonaa mid khayraysan. intii ay socotay qaybtii hore ciyaartuna Liverpool waxay uga dhignayd sidii cadaabtii oo kale. waqti aan dheerayn kadibna Kaka ayaa dhex orday daafacyada kooxda Liverpool, isaga oo kubad cajiib u bixiyay Shevchenko, kaasi oo kubadda shabaqa dhex dhigay kana dhigay 2-0. laakiin calanka ayaa taagnaa oo Shevchenko waxa uu ku jiray offside. badbaado ku meel gaar ayayna u ahayd taasi Liverpool. waxay isku dayeen inay soo nooleeyaan rajadooda, hase yeeshee Luis Garcia ayaa ka khasaariyay 2 fursadood. AC Milanna mar kale ayay gacanteeda ku soo celisay maamulidda ciyaarta. Liverpool waxa ay dalbadeen rigore kadib markii kubad ay ku dhacday suxulka Nesta, laakiin garsooruhu ma arkin. ka hor inta aysan arrintaasi ka cabanna Milan ayaa qaaday weerar degdega. markaan Shevchenko kuma jirin offside oo Kaka si qurux badan ayuu kubaddaasi uga dulqaaday daafacyada, waxaana uu siiyay Shevchenko. Shevchenkana kubadda ayuu la dhaqaaqay oo la galay boxiska, waxaana uu meel bannaan u dhigay Crespo, kaasi oo si fudud ugu taabtay shabaqa, ciyaartana ka dhigay 2 gool iyo waxba. Liverpoolna waa ay dagaalameen kaliya 6 daqiiqo ka hor waqtigii nasashadana waxaa lagu lahaa 2 gool iyo waxba. laakiin cidina ma filanayn inay sidaasi xaaladdu ka sii xumaan doonto. 1 daqiiqo oo kaliya iyadoo ay ka harsan tahay qaybtii horena Kaka ayaa kubad ka helay Pirlo, si fiican ayuu uga farsamaysay daafacyada, waxaana uu kubad cajiib u dusiyay Crespo, kaasi oo si cajiib u dhammaystiray goolhayahana ka dulqaaday. waxaa laga yaabaa inuu kani ahaa goolkii ugu quruxda badnaa ee ciyaarta. 3-0 iyo half-time-kii hore ee ciyaarta waa wax ay koox waliba ku riyooto. qof walba oo daawanayana waxa uu qaatay fikir ah in ciyaartii ay dhammaatay. taageerayaashii Milan waa ay dabaaldegeen, taageero badan oo Liverpoolna waa ay quusteen, xitaa qaarkood waxa ay go'aansadeen inaysan ku soo laaban
qaybta dambe ee ciyaarta kursigii ay ka daawanayeen garoonka. laakiin kuwii soo laabtay waxay markhaati u noqon doonaan dhacdadii ugu qariibsanayd ee tartankan abid lagu arkay. Rafael Benitezna waxa uu ogaa inay qasab tahay inuu wax u sameeyo, isla markaana uu u sameeyo si degdeg ah. waxa uu sameeyey xeelad cajiib ah isaga oo saaray daaficii Steve Finnan, waxaana uu ku beddelay qadkii dhexe ee Haman. fikraddu waxay ahayd mid fudud, waayo waxaa xilligan lagu lahaa 3 gool, sidaa daraaddeedna ma jirto sabab uu wax u difaacdo. waxa uu ka guuray shaxdii hore ahayd 4-4-1-1 isagoo u wareegay 3-4-2-1. qaabkaana waxa uu xorriyad dhinaca weerarkaas siiyey Steven Gerrard isagoo ay ka dambeeyaan Haman iyo sidoo kale Xavi Alonso, kuwaasi oo sameeyey gaashaan adag oo qadka dhexe ah. mararka qaarkood waxay keeni kartay xeeladani khatar, ha yeeshee qorshuhu waxa uu ahaa inaan soo laabanno ama aan dhimanno. Liverpool waxa ay garoonka ku soo laabteen iyaga oo leh hal ujeeddo oo keliya. haddii ay doonayaan inay rajadooda nooleeyaan waa inay gool dhaliyaan xilli hore. taasna waxaa laga dareemi karaa baahida degdega ah ee ka muuqatay Xavi Alonso, kaas oo goolka ka toogtay meel u jirta 35 yaardi, ha yeeshee kubaddaasi ma aysan dhalan. kadib markaasna Hyypiä ayaa qalad ku galay Kaka oo ku ordayay dhinaca goolkiisa, waxaana loo dhigay kooxda AC Milan kubad Brusiona. kubaddaasna waxaa si dirqiya ku badbaadiyey goolhayaha Liverpool. keliya 9 daqiiqo markii ay socotay qaybtii labaad ee ciyaartana Jordan Risi ayaa soo qaaday kubad dhinaca geeska, waxaana madax cajiiba ku dhammaystiray kabtan Steven Gerrard, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-1. xeeladii tababara Rafael Benitez ahayd inuu dhinaca weerarka u diray Steven Gerrardna waa ay shaqaysay weliba si qurux badan, laakiin qof walba waxa uu filanayay inay Milan mar kale u soo ceshan doonto maamulkeeda ciyaarta si sahlan, balse taa beddelkeeda marka ay wax soo socdaan cidna ma celin karto. kaliya 2 daqiiqo kadibna Vladimir Smisser beddelkii qasabka ahaa ee qaybtii hore waxa uu laaday kubad cajiiba oo xoog badan meel ka baxsan bokiska. kubaddaasina si haleela ayay ku gashay shabaqa iyadoo diidda uu waxba ka qaban waayay. 3-2 waxaan macquul ahayn ayaa isu beddelay macquul. taageerayaashii hurdooday waa ay soo tooseen, ciyaartoydiina han cusub ayaa galay. Milan oo u muuqatay inay ciyaarta dhammaysay qaybtii hore argagax ayay ku jirtaa. keliya qaybtii labaad oo 12 daqiiqo maraysana kooxda Liverpool waxa ay 2 gool ka keentay 3 gool, waxaana ay ka jawaabtay su'aalihii ahaa miyay samayn kartaa. ugu dambaynna waxay noqotay way samayn kartaa. kaliya 6 daqiiqo kadibna waxaa dhacay waxaan la rumaysan karin oo Gattuso ayaa dhulka dhigay Steven Gerrard oo ordaya xarqan 18. taasina dabcan waa rigoro. Alonso ayaa u soo istaagay, diidana waa uu badbaadiyey, laakiin kubaddii mar kale Alonso ayay cagta u gashay, si xooggan ayuu noo dhammaystiray. 3-3 keliya 15 daqiiqo dabcan waa mucjiso ku soo korortay kubadda cagta. Liverpool waxay gebi ahaanba ka soo laabatay 3 gool ee lagala hormaray qaybtii hore ee finalka Champions League, iyagoo ahaa duufaan iyo wax aan cidina hor istaagi karin oo mucjiso dhammaystiray. hadda ciyaartu waa 3-3, waxaana loo baahan yahay koox shaqada dhammaystirta, laakiin waa ay adag tahay inay ku dhacdo waqtiga caadiga ah. kooxda Milan hurdada ayay ka kacday, waxayna isku dayday inay mar kale hoggaanka soo ceshato, laakiin Liverpool waxa ay gashay difaac ay ku dhimanayso. Jimmy Carragher waxa uu sameeyey badbaadino cajiiba daqiiqadihii ugu dambeeyey, sidoo kale Traore ayaa kubad goolka sii galaysa si cajiiba uga badbaadiyey Shevchenko. Andrei Shevchenkona mar kale ayuu lumiyey fursad aan la lumin karin daqiiqadihii ugu dambeeyey. ciyaartuna waxa ay gashay waqti dheeriya iyada oo la bilaabay bandhigii Dudek. Shevchenko mar kale waxa uu helay fursad dahabiya weliba masaafo dhow, ha yeeshee Dudek ayaa ka badbaadiyey oo sameeyey 2 badbaadin oo cajiiba. ugu dambaynna waqtigii dheeriga ahaa waa lagu kala bixi waayey, waxaana la go'aamiyey in rigooro la isla aado si ay u soo baxdo kooxda championka qaadaysa. markaana waxaa la soo gaaray rigoorooyinkii, waana markii mar kale uu Dudek badbaadin lahaa kooxda Liverpool. rigooradii ugu horraysayna kooxda Milan waxa u doortay Serginho, kaas oo cirka u laaday. dhinaca Liverpoolna Haman ayaa soo kacay oo isaguna u dhammaystiray 1-0 kooxda Liverpool. taageerayaasha Liverpoolna waxay isku dayeen inay dhiirigeliyaan xidigahooda, taasina waa ay shaqaysay dabcan oo Dudek ayaa rigooro ka badbaadiyey halyeygii Andre Pirlo. Cisse ayaana u soo kacay mar kale rigoorada Liverpool, waxaana uu ka dhigay 2 gool iyo waxba. dhinaca Milanna waxaa soo kacay Thomasson oo tuuranaya rigoorada 3aad, waana uu dhaliyey isagu. diidda ayaa isna mar kale kooxda rajadeeda soo nooleeyey, waxaana uu rigooro ka badbaadiyey xidigii Liverpool ee Jordan Risi. rigooradan kalena waxaa soo qaatay Kaka, kaasi oo si cajiiba ugu dhammaystiray Milan, waxaana uu ka dhigay 2-2. dabcan markan waxaa rigoorada Liverpool tuuranaya Vladimir Smisser oo saaran yahay culayska oo dhan. xasilooni iyo deganaan ayuu muujiyey, waxaana uu dhammaystiray qaab cajiiba isagoo oo jiha qaldan u diray diidda. wax walbana waxa ay ku soo urureen hal laad oo keliya. Andrei Shevchenko oo ah ciyaaryahanka sanadka ee Yurub waxa uu wajahayaa Dudek.
Shufishaanka waa uu soo orday waxaana uu laaday mid ka mid ah rigoorayaashii ugu liitay ee lagu laado abid finalka Champions League. Dudek ayaana si fudud u badbaadiyey. Waa uu badbaadiyey, ciyaartiina waa ay dhammaatay. Liverpool iyada oo dhimatay oo u muuqatay in la aasay qaybtii hore ee ciyaarta, haddana si mucjiso leh oo la yaab leh oo weliba aan la rumaysan karin ayay u soo laabteen, waana ay garaaceen Milan. Waxa ay ku guulaysteen Champions League. Ma jirin sharaxaad, mala awaal ama hadal ay khubaradu ka tiri wixii halkaasi ka dhacay. Sidaa daraaddeedna waxaa la siiyey magaca ugu habboon oo ah mucjisadii Istanbul. Inaad 3 gool ka soo laabato ciyaaraha caadiga ahi waa mid iska caadi ah, laakiin inaad sidaasi samayso finalka Champions League adigoo ka soo horjeeda AC Milan oo waqtigaasi joogta isla markaana aad koob ka qaado waa sheeko aan weligeed la sheegin una muuqata mid aan mar kale la sheegi doonin.